السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلب نكسن دawadayaal meel kasta dunida nagala socotaan waa galabnimo jimcaha bisha Oktoobar 14 sanada 2022 qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaal culus oo ka dhex qarxay ciidamada wadanka Djibouti iyo waliba deegaanka Canfarta iyo wararkii ugu dambeeyay naga soo gaadhaya isku horimaadadaasi soconaya iyo dagaal ay dad badan ku dhinteen isla markaana diyaarada lagu soo riday oo ka dhacay waqooyiga wadanka Itoobiya iyo wararkiisii ugu dambeeyay iyo kooxda TPLF oo awood cusub la soo baxday halkay awooddaasi uga timid iyo waliba cidda taageerada siinaysa kooxda TPLF oo la ogaaday ayaan eegi doonaa iyo wararka imanaya gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo dagaalo ba'ani ay ku dhaxmarayaan ciidamada dawladda iyo kooxaha argagixisada ee shabaabka wararkoodii ugu dambeeyay ayaan soo qaadan doonaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu hal codsi u gudbistay dawladda federaalka ee dalka Itoobiya wixii codsigaasi iyo guud ahaanba qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilowne wararka naga soo gaadhaya dalka Itoobiya ee sheegaya in dagaal xooggan uu ka dhex qarxay ciidamada wadanka Djibouti iyo waliba kooxo Canfar ah oo weerar ku qaaday ciidamada dalkaasi Djibouti balse haatan waxaa la sheegay in arrintu ay ku fiday deegaanka Canfarta oo gadaal iska mariyay kooxihii weerar ku qaaday ciidamada Djibouti waxaana ciidamada wadanka Djibouti la soo buux dhaafiyay xuduudka wadanka Itoobiya ay la leeyihiin dalkaasi Djibouti dhinaca kale Canfarta ayaa bilowday inay iska caabin iyo waliba ay dhankoodana ka diyaar garoobaan oo ay u diyaar garoobaan weerarkaasi ay wadanka Djibouti ku soo qaadeen waxaa la sheegay in ay isku horimaadadaasi soconayaan haatan isla markaana ciidamada dalka Djibouti oo shalay baarlamaanka dalkaasi uu meel mariyay in ay duulaan ku qaadi karaan kooxahaasi Canfarta ayaa haatan waxaa la sheegay inuu dagaalku si toos ah uga bilowday xuduudka Itoobiya iyo Djibouti isla markaana deegaanka Canfarta ayaa dhankiisa dagaalka si toos ah u galay iyadoo markii hore la filayay in kooxaha Canfarta ay soo dhiibi doonaan isla markaana ay halkaasi kula dagaalami doonaan ciidamada dalka Djibouti balse haatan waxaa la sheegay in dagaalka ay ku biireen maamulka deegaankaasi Canfarta oo muddo dheer dhibaateynayay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha deegaankaasi Canfarta iyo waliba galbeedka gobolka City balse haatan waxaa la sheegay inay u muuqato in deegaanka Canfartu uu dagaal toos ah la galayo ciidamada Djibouti iyo waliba dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka gobolka City dhaqaaqyadii iyo waliba maleeshiyaadkii ku sugnaa galbeedka deegaanka ama galbeedka gobolka City ayaa laftirkoodu is diyaariyay waxaana la sheegay in ay maanta ay weerar ku qaadeen deegaano hoostaga garbaciisa iyo waliba meelo kale oo ku yaala galbeedka gobolka City isla markaana deegaamadaasi maanta la weeraray ayaa la sheegay in ay ciidamada maleeshiyaadka Soomaalidu ay u suurtay gashay inay si fudud ku gaadhaan deegaano hor leh oo ay aagaasi kala wareegeen si kastoo haataba dagaalka Djibouti iyo Canfarta ayaa haatan si rasmi ah u bilowday waxaana dawladda Djibouti ay sheegtay inaanay joojin doonin dagaalkaasi ilaa ay ka soo afjarayso kooxahaasi weerarka ku qaaday ciidamada dalka Djibouti oo aqoonsatay inay yihiin kooxo argagixisa dhinaca kale dagaal ba'an ayaa waxa uu ciidamada dawladda iyo waliba kooxda TPLF ku dhaxmaraya gudaha deegaanka Tigreega meelo fara badan oo kamid ah ayaa maanta la isku farasaaray waxaana kooxda TPLF ay soo riday diyaarado dagaal oo dawladda Itoobiya ay leedahay iyadoo la sheegay in meelihii maanta ay dagaalada baani ka dhaceen ilaa iyo hadda inay ku kala sugan yihiin labada qaybood kooxda TPLF-tuna la dhaqaajin la yahay oo ay awood cusub la soo baxday waxaa guud ahaan maalmahanba soo baxayay warar sheegay in ciidamada wadanka Mareykanka iyo waliba Faransiiskuba ay si qarsoodi ah ku gaadhayeen wadankaasi ama deegaanka Tigreega gaar ahaan waqooyiga dalkaasi Itoobiya oo dhanba inay ku tageen safaradaasi qarsoodida oo ay geynayeen hub iyo waliba saanad kala duwan oo la waday kooxda TPLF-ta diyaaradahaasi meelaha ay ka digeen waxaa kamid ah Makale Shire iyo Adigrad sida xoguhu ay tilmaamayeen dawladda Itoobiya war ay soo saartay ayaa lagu sheegay in wadamada reer galbeedku ay gacan hoose siinayaan kooxdaasi TPLF-ta isla markaana ay doonayaan in colaadda waqooyiga wadankaasi Itoobiya ay sii socoto oo ay wadaan qowda maqashi waxna u qaban iyagoo marar fara badan soo saaraya in ciidamada dalka Eritrea ay isaga baxaan waqooyiga dalkaasi Itoobiya si colaadda dalka Itoobiya loo joojiyo loona dhexdhexaadiyo labada dhinac ee Itoobiya iyo TPLF-ta balse dawladda Itoobiya waxay sheegtay in reer galbeedku ay si toos ah ula safanayaan kooxdaasi TPLF-ta cidda barbaarinaysan ay iyaga yihiin si kasta oo ay ahaataba kooxda TPLF-ta iyo dawladda Itoobiya ayaa loogu baaqay inay wada hadlaan isla markaana dawladda Itoobiya ayaa haatan doonaysa inay xoog u adeegsato kooxdaasi TPLF-ta ciidamo fara badan oo la isaga keenay guud ahaanba deegaanada kala duwan ee dalkaasi Itoobiya ayaa kusii qulqulayay saacadihii la soo dhaafay goobaha hore ee dagaaladu ka socdaan iyadoo hore ugu sugnaayeen ciidamada dalka Eritrea kuwa wadanka Itoobiya iyo waliba kooxaha Fano iyo maleeshiyaadka Canfarta oo ka wada qayb qaadanaya dhammaantood dagaaladaasi soconaya ilaa iyo haddana guulo muhiim ah oo la taaban karo
karo oo ay kasoo hooyeen goobahaasi dagaalka aanay jirin ayaa haddana waxaa kusii biiraya ciidamada dowlad deegaanada oo Soomaalidu ay ka mid tahay waxaana wararku ay tilmaamayaan in kooxda TPLF-ta haatan ay heshay saanad cusub oo u muuqata in ay burburin karayso diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi Itoobiya arrintaasi oo halis weyn ku ah dowladda Itoobiya ayna xilligan ka fikirayso dowladda Itoobiya hubkaasi halka uu ka yimid iyo waliba cidda kooxda TPLF-ta soo gaadhisay balse xoguhu waxay tilmaamayaan in wadamada Mareykanka iyo Faransiisku ay ka qayb qaadanayaan guud ahaanba taageerada kooxdaasi TPLF-ta haatan anagno Soomaaliya wararka naga soo gaadhaya maanta oo 14 Oktoobar waana maalintii uu dhacay qaraxii Soobe ee dadka faraha badan ay ku dhinteen magaalada Muqdisho ayaa laga xusay isla markaana waxa ay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed ku tilmaameen inay tahay maalin aan qalbiyadooda ka go'i karin wasiirka roofinta ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay tahay maalintani maalin guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed qalbiyadooda mar walba xasuusinaysa murugo iyo waliba dhibaato xoog badan duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay duulanka kooxda argagixisada ee shabaabka lagu in uu sii socon doono oo guud ahaanba ilaa iyo kooxahaasi dhagar qabayaasha ay qaba dhiigga Soomaaliyeed ee shacabka masaakiinta in ay ciidamada dowladda iyo waliba dadka deegaankuba ay haatan ka soo dhamaatay dulqaadkii oo ay sii wadi doonaan weeraradooda dhinaca kale gobolada Shabeellaha Dhexe iyo waliba gobolka Hiiraan oo haatana furimaha ay dagaaladu ka socdaan ayaa la sheegay in ay maanta ciidamada dowladdu ay horumar ballaaran ka sameeyeen weerar lagu qaaday kooxahaasi argagixisada xilli la xusayo maalinta 14 Oktoobar oo maalintii ay dadka ugu badan ku dhinteen Soomaaliya oo ay kooxahaasi dhagar qabayaasha argagixisada ay dileen waxaa maanta ciidamada dowladdu ay sheegeen in ay qaadeen weerar culus oo kooxahaasi argagixisada ku wajahan isla markaana gobolka Hiiraan oo maalmaha ay dagaalo ba'an ku dhaxmarayeen ciidamada dowladda iyo kooxahaasi argagixisada waxay sheegeen maanta in ay soo qabteen qaar ka mid ah kooxihii argagixisada oo nolosha lagu soo qabtay deegaanka Jicibow agagaarkiisa kuwaasi oo maalmahanba ku dhumaalaysanaya aagaasi kadib markii ay ciidamada dowladdu sheegeen inay dileen ku dhawaad 200 oo ka tirsanaa dagaalyahanada kooxdaasi oo weerar ku soo qaaday deegaankaasi Jicibow balse markii dambe firxadkoodu uu meelo fogfog gaadhay haatan waxay dowladdu sheegtay inay soo qabteen qaar badan oo ka mid ah kooxahaasi oo aagaasi ku dhumaalaysanayay dhinaca kale deegaanka iyo Sooman oo laftirkoodu ay weerar ku qaadeen isla markaana ay ciidamo fara badan oo meelo badan ay ka keeneen ay geliyeen aagaasi ayaa haatan waxaa gaadhay gurmadyo kala duwan oo meelo badan oo dalka ka tagay waxaana gurmadyada ay ka kala tageen Galmudug iyo waliba meelo kale oo gobolada Shabeellaha Dhexe iyo magaalada Muqdisho ay ka mid yihiin madaxda dalka intooda badan iyo waliba xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku sugan gobolka Hiiraan waa kuwa ka soo jeeda gobolkaasi waxaana haatan ay si toos ah uga qayb qaadanayaan dagaaladaasi Maxamed Ibrahim Macalimo iyo waliba xildhibaano kale oo uu hogaaminayo ayaa ku sugan gobolkaasi oo iyagu xilligan u taagan in ay ciidamada Soomaaliyeed garab istaag u muujiyaan si kooxahaasi looga adkaado waxaa sidoo kale ku sugan Samboloshi agaasimi hore hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka oo ka qayb qaadanaya guud ahaanba khidadaha kooxahaasi argagixisada xilligan lagu burburinayo dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku sugan wadanka Itoobiya halkaana kaga qayb galaya shir ay isugu imanayaan madaxda Afrika intooda badan oo ka dhici doona magaalada Bahardar ee xarunta maamulka Axmarada ayaa waxa guud ahaanba uu dowladda Itoobiya ka codsaday inay xilligan taageero ballaaran siiyaan ciidamada dowladda ayna saanad iyo waliba hub sida wadanka Uganda oo kale ay la garab istaagaan ciidamada Soomaaliyeed ciidamo tiro badan oo ka socda wadankaasi Itoobiya ayaa xilligan ka qayb qaadanaya dagaalada kooxahaasi argagixisada lagula jiro walow dowladda Itoobiya lafteedu ay isdifaacayso oo kooxahaasi argagixisadu ay gudaha u galeen dalkaasi Itoobiya ciidamada Liu Poliska ayaa meelo badan oo ku dhow xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya ka howlgalaya halka ciidamada dowladda Itoobiya laftoodu ay ka qayb qaadanayaan howlgalladaas waxaana ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu dowladda Itoobiya ka codsaday in howlgalladaasi ay ciidamadaasi mideeyaan oo si midaysan ay uga wada qayb qaataan dagaaladaasi oo lagu wiiqayo kooxahaasi argagixisada halka dowladda Itoobiyana ay arrintaasi soo dhaweysay akhayrta sharafta leh wada nagala socoto taniyo kulanti dambe nabadgelyo